kulanti wacan wanaagsan daawada ku soo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka qodobada aad ku daawan doontaan janaalkan waxaa kamid noqon doona siyaasiga Faarax Macalin oo markaasi Kenya xildhibaanka ka ah ayaa warar afka ku qaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo saaxiibada u hayeen kuna tilmaamay inuu yahay Farmaajo furi la dagaalami waayay al-shabaab macluumaad dhameystiran oo arrintaas ku saabsan xogo iyo sir badan uu ka hayay uu faafiyay ayaa daawan doontaan oo isoo gudbi doona wareysigiisa siyaasiga Faarax Macalin oo si kul u weeraray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo saaxiibada u hayeen waxyaabaha isku maageen siyaasigaasi caqabadaha markaasi Farmaajo ka soo wajahay intuu xilka hayay ayaa daawan doontaan in Facebook ku weeraray al-shabaab oo maanta lagu qarxiyay magaalada Muqdisho xaaladiisa caafimaad waa si shakhsigaasi muxuu ahaa waan idin soo gudbi doonaa dowladda federaalkan waxay shaacisay xilliga dalka ugu soo celin doona ciidamada Eritrea ku maqan ee tababarka halkaas loo qaaday sanadooyin ka hor halka afwarka madaxweynaha dalkaasina uu shuruudo adag hordhigay iyo shuruudaha mid ka mid ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo fuliyay waa daawo doontaan waxaa kaloo idin soo gudbi doonaa dagaalada al-shabaab ee ka socda gobolada dalka ee gaar ahaan gobolka Galgaduud oo wajah cusub yeeshay iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo sir badan banaanka soo dhigay kadib markii khilaafku soo kala galay taraha ciidanka xoogga dalka Janaal Wad Yuusuf Yaraage adbisna waxaa la sheegay in ay aragto cusub ay ka heshay ciidamada dowladda kadib markii kacdoon uu ku bilowday dalka oo looga soo horjeedo dhaqdhaqaaqa al-shabaab وبعدين كفا فانتنا وركلا مع عالم كدول مسيدة مرود كواد ودن كاسي كينيا هذا الشيء ما أنت أول هذا الهين بدن كليه براه بوشد الكاسي كينيا محوجة هذا الكاس واحد ودن تان هذا النقطة تعمل كورس بسكراب كناصر وكمل كان فرنسي شركة حبيبي مركز الجوجان ليكوكم أنتيجا لايكنا إنه الربيع أدبت ما سنتينا أنا كوب اللونو سياسي كفارح معلن عمر كاسي كيان كأ اسمر كان كينيا حلبان كأ برمان دلكاسي كينيا توين عمر كاس taageeri jiray xukuumadii iyo sidoo kale waa nidaamkii hore ee madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo siyaasiga Faarax Macalin oo wareysi dhacay badan siinay mid kamid ah warbaahinada maxalliga ah ayaa wuxuu markaas banaanka soo dhigay sir badan oo Farmaajo ka hayay waxa uu ku tilmaamay inuu ahaa Farmaajo nin furay ah oo markaas wadanidiisa ay qarisay fulinimo waxa uu ku tilmaamay inuu ahaa nin la dagaalami waayay al-shabaab uu ku dhiran waayay taa bedelkeedana sababta wuxuu ku sheegay inay tahay in uu ka sugayay fasax ah in al-shabaab markii uu doonayo inuu la dagaalamo uu fasax ka rabay Mareykan iyo beesha caalamka taa oo ah dad markaas ayaguba aan doonayn in al-shabaab laga dagaalamo oo markaas uu ka raasanayo garab iyo in markaa fasaxaysiiyaan waa cajiib ayay leeyihiin dadku markaas falanqeeyay siyaasadda oo markaa hadalka Faarax Macalin ka falcelinayay qaarkood waxay qabaan in Faarax aqoontiisu yahay nin u shaqeeya calooshiisa dowladda Kenya markaa ka soo shidaal qaatay maadaama xildhibaan uu ku yahay waxaa kaloo lagu xasuustaa inuu yahay nin markaasi si weyn u dhalila nidaamka madaxweynaha hadda xilka haya Xasan Sheekh Maxamuud Faarax Macalin waxaa markaasi horay uu ugu mid ahaa dadka sida weyn taageero ugu ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya dowladdii dhibaatooyinka badan lagu tirsanayana taageeri jiray wax walba oo markaas dib iyo dheef ay wadanka ka geysana marka uu ku taageeri jiray imankaas wuxuu leeyahay madaxweyne Farmaajo wuxuu ahaa in markaasi aan karti aas lahayn uu kula dagaalamo al-shabaab imanka dowladdan ayaa ku dagaalantay oo shacabka markaasi u weynaysa taas oo ku tilmaamay inay tahay khatar kale oo ka dhalan karta in macluumaadka markaasi la hubiyo dhinaca kale haddii aan eegno Muqdisho nin ayaa Facebook ku weeraray maalmo ka hor al-shabaab markaas ayaa la arkayaa in lagu qarxiyay magaalada Muqdisho warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho kaasoo joogtiisa inta badan laga maqlay nawaaxiga wadada mashquulka badan ee Makka al-Mukarrama qarax waxaa lagu soo waramayaa inuu gaarigiisa loogu xiray in loogu magacaabo Musharraf Maxamed Macalin xilli uu marayay agaarka isgoyska sayidka Muqdisho Musharraf ayaa waxaa soo gaaray dhaawac iyadoo markaas lala carramay mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho ku yaala wararka qaraxa ayaa la beegsay ninkan dhalinyarada ah oo sidoo kale u shaqeynayay dowladda Soomaaliya ayaa ku soo aadayo saacado kadib markii uu fariin ka dhan ah al-shabaab ku baahiyay bartiisa Facebook isagoo ku baaqay in loo midoobo dagaalka al-shabaab kana sidoo kale Musharraf Maxamed ayaa ka tirsanaa shaqaalaha xafiiska xiraarinta ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ay markaasi inuu xaqiijin dad markaasi lagu kalsoon yahay bal aan eegno qoraalka uu ninkan markaasi Facebook-giisa ku soo daabacay ee markaasi sababtu ah in la beegsado qarax maanta wuxuu yiri sida dhaqanka iyo diintu tahay ninka ragga ah saddex lagama maro waa reerkiisa xoolihiisa iyo sharafkiisa al-shabaab dhowr iyo 10 sano ayay gabdhaha si dulmi ah u guursanayeen doorasho la'aan iyo markaas meher qasab ah ummadda xoolahoodana way dhacayeen qofkii mayadaha dhiigiisa ayay banaysanayeen ayuu ku yiri qoraalkiisa qof kasta oo raali ka noqda si socoshada inta ka maqan ama aysan dhibin ugu yaraan uu yiri Zeus aan tamir lahayn ku soo gabagabay Zeus jana magalo ugu dambeyntii qoraalkaas ayaa la fahansan yahay in uu sababsaday idinkan dhalinyarada ah ee dowladda u shaqeynaya qanaan xeelaynta maxkamadda qalabkiisa
ugu dambeyntii maanta lagu qarxay magaalada muqdisho hadda xaaladiisa caafimaad ayaa lala tacaalayaa isbitaalada muqdisho mid kamid ah ayaa markaas la geeyey oo markaa lagu dabiibayo siyaabooyin kala duwan ayaana looga hadlay qarax maanta wiilkaas dhalinyarada markaas lala beegsaday al-shabaab ayaana warbayaab kasoo saartay waxaana ku tilmaamay inuu ahaa nin ka shaqeeya dowladda una shaqeeya dadka markaas jawaasiis markaana haddii aan eegno qeybihii dhexe ayaa daawanaysaan janalkeena haddii aad nagu cusubtaa subscribe noo saaro gambalada furunsi shirkadaha xibadii markasta joogaan idinka hukumantiga marmarkaana aan eegno dowladda waxa ay shaacisay in dalka dib lagu soo celin doono ciidamadii dalka Eritrea lagu tababarayay ee dowladda madaxweyne Farmaajo 4 sano ka hor halkaas u qaaday wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu sheegay in dowladda ay wado qorshaha dhalinyarada tababarka loogu qaaday dalka Eritrea oo markaas dib loogu soo celin doono Fiqi ayaa sheegay in ciidamadaasi oo gaaraya 5,000 oo askari dalka loogu soo celin doono intuu u socdo howlgalka ka dhanka al-shabaab ee ka bilowday gobolada qaar gaar ahaan Hiiraan, Galgaduud, Shabeellooyinka, Baa iyo Boqol sida ay uga qayb qaadan lahaayeen xulana dalka ciidamada lagu tababaray Eritrea waxa ay soo laaban doonaan intuu u socdo howlgalada haatan dalka oo dhan ka socda ayuu Fiqi wuxuu tilmaamay in dowladdu ay diyaarin doonto meelihii la dejin lahaa askartaas iyo agabkii ay ku hurgin lahaayeen sida uu hadalku dhigay horey madaxweynaha Soomaaliya ayaa 10kii bishii July sanadkan wuxuu ku booqday ciidamadan xeryaha ay ku tababartaan ee dalka Eritrea iyadoona in muddo markaas lahaa wacaalkooda taas oo ay walaac iyo shaki xooggan ay ka abuurtay waalidiinta carruurtaas si kastaba dowladda Soomaaliya ayaa haatan wada qorshe ballaaran oo kana al-shabaab waxaana bilowday kacdoon weyn oo al-shabaab looga saarayo dalka oo dhan markan haddii aan eegno wararka arrimaha gobolka waxaa ugu waaweyn hadal ay jeedisay imrooda kuwad ee madaxweynaha dalkaasi Kenya Rachel Ruto ayaa hadalhayn badan ka abuuray gudaha dalkaasi Kenya waxaana hadalkan siyaabo kala duwan ugu falceliyay qaar ka mid ah dadka halkaas ku dhaqan Rachel Ruto ayaa sheegtay in xarunta madaxtooyada Kenya dalkaasi ay martigelinayso kulamo duco ah oo ay qabanayaan wadaado masiixiyiin ah waxaana hadalkan daba socda kulan ahadii madaxtooyada lagu qabtay wadaado masiixiyiin ah madaxweynaha dalka Kenya William Ruto iyo xaaskiisa ayaa ah masiixiyiin aaminsan evangelical waxa ay marwadu madaxweynaha aaminsan tahay in guusha ninkeeda ka dhalatay iimaankiisa iyo aaminsanaanta diintiisa albaabada aqalka dowladda waa ay furan yihiin oo ogow in halkan idin joogto hooyo Richard ayna had iyo jeer albaabadu kuu furi doonto marka madaxweynuhu mashquulo ayay tahay marwada kuwaad ee dalkaasi Kenya Rachel Ruto hadalka ayaa abuuray falcelino kala duwan oo ka imaanaysay bulshada waxayna dadka qaar ay ka soo horjeesay in madaxtooyada loo furo wadaado masiixiyiin ah waa wadaado diimeed qaar halka kuwa kalena laga xiriyo haddii madaxweyne muslim ah uu sameeyo waxa ay masiixiyiintu ka sameynayaan aqalka madaxtooyada hadda waxaa dalka oo dhan ka dhici lahaa mudaharaado waaweyn annaguna waxaan nahay bay tiri dowlad ilmaani ah diinna kama horumarno cid kale ayuu yiri aan raadiyay mid kamid ah dadkii ka falceliyay hadalka marwada kuwaad ee dalkaas Kenya dalka Kenya waxaa ku wada nool bulsho kala duwan oo isugu jira muslimiin iyo gaalo waxayna dadka qaar tilmaameen tallaabada wadaadada masiixiyiinta kaliya loogu furayo albaabada madaxtooyada Kenya ay tahay kala saarid dhinaca diinta wararka waaweyn ee Soomaaliya caalamka kala socoteen janalkeena qaybtan daawatay waa naginta haddii aad nagu soo tamar karo subscribe noo soo gambalka furunsi shirkadaha xibadii markasta joogaan waad ku mahadsantiin